wax yar waxaan ka oran doonaa waxa wadanka ka taagan maanta saddex arrimood ayaa siyaasadda la isku hayay muddooyinkii ugu dambeeyay arrinta gado gudiyada madaxa bannaan inay noqdaan ee doorashada iyo arrinta Somaliland ama waqooyi wadanka Soomaaliya su'aashan maanta doonayno inaanu abaarno waxa weeye arrinta dadka waqooyi ka soo jeeda ee wadanka koonfurtiisa degan magaalada Muqdisho gaar ahaan xaq ma u leeyihiin inay u madax bannaanaadaan inay soo xushaan iyagoo dadka ka meelaya dawladda federaalka ah ee soo socota haddayna xaq u lahayna maxaa la quman Soomaali su'aashaasaynu isku daynaa inaanu ka jawaabno shalay waxa soo baxday xalay in la leeyahay heshiis ayaa lagu gaaray magaalada Baydhabo guddiga farsamadu ay gaareen waxaanu leenahay lama heshiine waa la noo heshiiyay haddaanu nahay reer waqooyi lama heshiine waa la noo heshiiyay haddaanu nahay reer waqooyi haddii dadka Soomaaliyeed gaar ahaan Muqdisho degan iyo Banaadir degan hadday arrintaa ka aamusaanna halisteedu maxay tahay weeyaan waxaan qabnaa waxa weeye curdankii ama curadkii Soomaaliyeed wuxuu ahaa waqooyi buha iyo ka gobonimada ugu hor qaatay iyo kaana heshiis la galay koonfurta si jumhuuriyadda loo bilaabo haddii markaa iyo ka gobonimaha ku waayaan Muqdisho waxay tahay waran halbowlaha midnimada iyo Soomaalinimada goynay waa iyadoo la kufsaday qarannimadii iyo midnimadii Soomaaliyeed bay tahay lana nijaaseeyay wixii ummadda isku keenay oo lagu kaacay marka su'aashu waxa weeye dadka reer Muqdisho iyo dadka koonfurta degan gobolka Banaadir degan mas'uuliyadda saaran maxay tahay markaas ilaa iyaka caasimadii jooge waxaan islahay waxa weeye inaan ina xasuusiyo 2006 December markii axmaarku soo galay dhulka ee Muqdisho la gumaadayay dadka Soomaaliyeed halkan degan dadka reer Banaadir la qaxiyay la kufsaday la boobay la burburiyay inaan xasuusiyaan rabaa dadka reer Banaadir maanta waxa weeye dadka reer waqooyiga haddaan anigu gaar ahaan iskaga hadlo waxa weeye habeen iyo maalin kama naanseexan sidii dadkaasi xaqooga ay u helayeen axmaarna looga saari lahaa wadan Mareykan baan u tagnay Yurub baan u tagnay Afrikaan u tagnay meel walba aanu ku taageerano dhibta walaalaha iyo caasimadayadii haysata ninka fuushan buurta wila Soomaaliya xaquu ku maqnaa 2006 ilaa 2008 xaquu ku maqnaa bal inuu soo raadiya muuqaalna muu lahayn maqaamna muu lahayn isagii ayaa doonaya markaa maanta inuu dadka reer waqooyiga xaqoogii duufsiyo iyadoo Muqdisho la joogo waxaan leeyahay markaasi mudaharaad ayaa beritoole ka dhacaya magaalada Muqdisho nabada xasiloon lagu doonayo in xaq lagu helo xaqa musharaxiinta xaqa qaranka xaqa dadweynaha Soomaaliyeed iyo xaqa reer waqooyiba lagu doonayo waxaan leenahay yuna mudaharaadkaasi noqon beriyo qura waa inuu joogto noqdaa ilaa xaqa la helayo haddii kale inta beri la isku yimaado oo la kala dareero oo la kala seexdo waxay soo kordhin doontaa ma jirto marka waxaan ku boorinayaa dadka reer Banaadir intay is ururiyaan si joogto ah mudaharaadkaasi u socdo ilaa ninka buurta fuushan iyo kuwa la shaqaysta hay caqligu u soo noqdo fariimaan u diranaa jimciyadda quruumaha waxaad moodasaan ninka jimciyadda quruumaha ka madaxda ah inuu u dhaqmayo sidii governatorkii Talyaaniga oo isagu kala hagayo waxana la sameeyo waxa lama sameyn karo waxana la sameeyo leeyahay waxaan ku leeyahay isaga iyo xulafadiisana dadka Mareykanku way diideen Trump oo waxay yidhaaheen distoor baa jira distoorka lagu shaqeynaya waxaan ku leenahay jimciyadda quruumaha xaq Soomaaliyeed baa jira oo cidnaba loogu aabayeelay marka ama sidii jimciyadda quruumuhu hay u shaqeyn jirtay markii isticmaalku joogay kontomeeyadii hay u dhaqmi jirtay ha u dhaqmo
haddii kale dadka Soomaaliyeed waxaanu sheegnaa jimciyadda quruumahana inay iska qabtaan ta ugu dambaysa walaalayaal waxa la yiri waa la heshiiyay baydhabo heshiis baa ka soo baxay la yiri Soomaali waxaan ku leenahay gaar ahaan reer Banaadir waxaan ku leenahay waa la noo heshiiyay haddaanu reer waqooyi nahay waa la noo heshiiyay ma noo heelinaysaa haddii had noo heelisaana annakuna sidii awalba hanu iniigu heelinaynay ayaanu iniigu heelinaynaa haddaad naga seexataanna dee annaku meel nijaasa oo qarankii Soomaaliyeed lagu nijaasaynayo oo lagu kufsanayo midnimadii u dulqaadan mayno wixii nala qumana annakoo midnimada komitidana ayaanu yeeli doonaa wax yar waxaan ka oran doonaa waxa waddanka ka taagan maanta saddex arrimood ayaa siyaasadda la isku hayay muddooyinkii ugu dambeeyay arrinta gado gudiyada madaxa bannaan inay noqdaan ee doorashada iyo arrinta Somaliland ama waqooyi waddanka Soomaaliya su'aashan maanta doonayno inaanu abaarno waxa weeye arrinta dadka waqooyi ka soo jeeda ee waddanka koonfurtiisa degan magaalada Muqdisho gaar ahaan xaq ma u leeyihiin inay u madax bannaanaadaan inay soo xushaan iyagoo dadka ka mathalaya dawladda federaalka ah ee soo socota haddayna xaq u lahayna maxaa la quman Soomaali su'aashaasaynu isku daynaa inaanu ka jawaabno shalay waxa soo baxday xalay in la leeyahay heshiis ayaa lagu gaaray magaalada Baydhabo guddiga farsamadu ay gaareen waxaanu leenahay lama heshiine waa la noo heshiiyay haddaanu nahay reer waqooyi lama heshiine waa la noo heshiiyay haddaanu nahay reer waqooyi haddii dadka Soomaaliyeed gaar ahaan Muqdisho degan iyo Banaadir degan hadday arrintaa ka aamusaanna halisteedu maxay tahay weeyaan waxaan qabnaa waxa weeye curdankii ama curadkii Soomaaliyeed wuxuu ahaa waqooyi buu ahaa iyo ka gobonimada ugu hor qaatay iyo kaana heshiis la galay koonfurta si jumhuuriyadda loo bilaabo haddii markaa iyo ka gobonimaha ku waayaan Muqdisho waxay tahay waran halbowlaha midnimada iyo Soomaalinimada goynaya waa iyadoo la kufsaday qarannimadii iyo midnimadii Soomaaliyeed bay tahay lana nijaaseeyay wixii ummadda isku keenay oo lagu kaacay markaa su'aashu waxa weeye dadka reer Muqdisho iyo dadka koonfurta degan gobolkan Banaadir degan mas'uuliyadda saaran maxay tahay markaas ilaan iyaga caasimadii jooge waxaan islahay waxa weeye inaan ina xasuusiyo 2006 December markii axmaarku soo galay dhulka ee Muqdisho la gumaadayay dadka Soomaaliyeed halkan degan dadka reer Banaadir la qaxiyay la kufsaday la boobay la burburiyay inaan xasuusiyaan rabaa dadka reer Banaadir maanta waxa weeye dadka reer waqooyiga haddaan anigu gaar ahaan iskaga hadlo waxa weeye habeen iyo maalin kamaanaan seexan sidii dadkaasi xaqooga ay u helayeen axmaarna looga saari lahaa waddanka Mareykan baan u tagnay Yurub baan u tagnay Afrikaan u tagnay meel walba aanu ku taageerano dhibta walaalaha iyo caasimadayadii haysata ninka fuushan buurta villa Soomaaliya xaquu ku maqnaa 2006 ilaa 2008 xaquu ku maqnaa bal inuu soo raadiya muuqaalna muu lahayn maqaamna muu lahayn isagii ayaa doonaya markaa maanta inuu dadka reer waqooyiga xaqoogii duufsiyo iyadoo Muqdisho la joogo waxaan leeyahay markaasi mudaharaad ayaa beritoole ka dhacaya magaalada Muqdisho nabada xasiloon lagu doonayo in xaq lagu helo xaqa musharaxiinta xaqa qaranka xaqa dadweynaha Soomaaliyeed iyo xaqa reer waqooyiga lagu doonayo waxaan leenahay yuna mudaharaadkaasi noqon beriyo qura waa inuu joogto noqdaa ilaa xaqa la helayo haddii kale inta beri la isku yimaado oo la kala dareero oo la kala seexdo waxay soo kordhin doontaa ma jirto marka waxaan ku boorinayaa dadka reer Banaadir intay is ururiyaan si joogto ah mudaharaadkaasi u socdo
ilaa ninka buurta fuushan iyo kuwa la shaqaysta hay caqligu u soo noqdo fariin baan u diranaa jamciyadda quruumaha waxaad moodaysaan ninka jamciyadda quruumaha ka madaxda ah inuu u dhaqmayo sidii governatorka Talyaaniga oo isagu kala hagayo waxana la sameeyo waxa lama sameyn karo waxana la sameeyo leeyahay waxaan ku leeyahay isaga iyo xulafadiisana dadka Mareykanku way diideen Trump oo waxay yidhaaheen distoor baa jira distoorka lagu shaqeynaya waxaan ku leenahay jamciyadda quruumaha xaq Soomaaliyeed baa jira oo cidnaba loogu aabayeelay marka ama sidii jamciyadda quruumuhu hay u shaqeyn jirtay markii isticmaalku joogay kontomeeyadii hay u dhaqmi jirtay ha u dhaqmo haddii kala dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegnaa jamciyadda quruumahana inay iska qabtaan ta ugu dambaysa walaalayaal waxa la yidhi waa la heshiiyey baydhabo heshiis baa ka soo baxaa la yidhi Soomaali waxaan ku leenahay gaar ahaan reer Banaadir waxaan ku leenahay waa la noo heshiiyey haddaanu reer waqooyi nahay waa la noo heshiiyey ma noo hiilinaysaa haddii had noo hiilisaana annakuna sidii awalba hanu iniigu hiilinanay ayaanu iniigu hiilinanaa haddaad naga seexataanna dee annaku meel nijaasa oo qarankii Soomaaliyeed lagu nijaasaynayo oo lagu kufsanayo midnimadii u dulqaadan mayno wixii nala qumana annakoo midnimada ku mitidana ayaanu yeeli doonaa waad salaamantii